Carlo Ancelotti oo maxkamad la soo taagay kadib arrin tuuganimo ah oo ku kacay. Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa maxkamad la soo taagay isaga oo lagu eedeeyay inuu lunsaday canshuur dhan 1 milyan oo euro intii u dhaxaysay sanadihii 2014 iyo 2015. Xeer ilaalintu waxay dalbanaysaa in lagu xukumo xabsi gaaraya 4 sano iyo 9 bilood iyo ganaax lacageed oo dhan 3.2 milyan oo euro. Qareenka Ancelotti intii uu hortaagnaa maxkamadda, Ancelotti wuxuu ku adkaystay inuusan wax khiyaanaha samaynin. Wuxuu sharaxay in marka uu yimid Real Madrid uu si shakhsi ah ula xaajooday heshiiskiisa sida uu mar walba samayn jiray muddadii uu ciyaaryahanka iyo tababaraha ahaa. Wuxuu sheegay inuu PSG ka qaadan jiray 5% mushaar saafi ah halka uu Real Madrid kula heshiiyey 6% mushaar saafi ah oo muddo 3 sano ah. Ancelotti wuxuu xusay inuu heshiisyadiisa mar walba si toos ah u sameeyo uuna ganacsigiisa ku saleeyo mushaar saafi ah isagoo diiday inuu yahay la taliye. Wuxuu sidoo kale sheegay in Real Madrid ay u soo bandhigtay qaab dhismeed uu 15% heshiiskiisa ka mid ah uu u go'i doono xuquuqda sawirada. Xeer ilaalinta oo eedayn culus soo jeedisay, dacwad oogayaashu waxay ku eedeeyeen Ancelotti inuu adeegsaday shirkado been abuur ah si uu u qariyo dakhliga uu ka helay xuquuqda sawiradiisa. Waxay sheegeen inuu kaliya diiwaangeliyay mushaarkiisa rasmiga ah ee Real Madrid balse uusan sheegin dakhliga kale ee uu ka helay xuquuqda sawirada. Dacwadan ayaa Ancelotti ka dhigaysa shakhsigii ugu dambeeyay ee la xiriira kubadda cagta Spain oo lagu eedeeyo lunsansho canshuur kadib kiisaskii la xiriiray Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kuwaas oo markii dambe xal ka gaaray dacwadooda iyagoo bixiyay ganaaxyo lacageed. Dacwadan ayaa sii socon doonta maalmaha soo socda waxaana weli suuragal ah in xal laga gaaro arrintan si looga fogaado xukun adag oo ay maxkamaddu ku rido.